بسم الله الرحمن الرحيم كلن كعاوة وجددي سواحي تهي أينو هالكان يسوون نمد مشرحة مدحوين النمدا قبل الله ده مدوب يقل جدود ويسوس شرحي عبد الكريم حسين قوليد أيها جالية الصوماليات يكونوا الوطن كإنجليزكا مقالة لندن يو قبل الله إنجليزكا أردن iyo wadamada dariska ayaa cod dheer waxay ku taageerayaan musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah shakhsi macruuf ah. Cabdikariin Xuseen Guuleed waa nin u istaagay intii dhibka Soomaaliya uu ka jiray inuu u qabto dadkiisa wax wanaagsan una qaban jiray mujtamacuna uu wada yaqaano. Cabdikariin Xuseen Guuleed wuxuu joogaa magaalada Cadaado waa musharax dadka Soomaaliyeed waxay ku qabaan kalsooni aad u buuxda sidaas darteed ayaa jaaliyadan ku nool magaalada London iyo wadanka Ingiriisku ay ku taageerayaan Cabdikariin Xuseen Guuleed. mahadi ha ka gaarto gabadha gudoomiyaha haweenka qaranka ee Mada International Association Qaali Xasan Cadow Beerlulo oo ah gabadha suurta gelisay inay xafladan ay qabsoonto waa Qaali Beerlulo mahadi ha ka gaarto. aad ayaa u mahadsan tahay waxaan idinkaga mahad celinaynaa sidaad u ajiibteen imaatinka waqtigiina aad ugu soo horteen una taageerteen Cabdikariin Xuseen Guuleed. waxaa qadka ku jira hadda Cabdikariin Xuseen Guuleed oo nagala qayb qaadan doona caawa xafladda taageerada musharax Cabdikariin. Cabdikariin ma maqashaa? waxaa caawa halkan ku sugan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Ingiriiska waxay caawa halkan ku dhigayaan xaflad taageero musharaxnimadaada madaxweyne ah. waxay rabaan kelmadahaaga inaad nagala qayb qaadato xafladda waana ay ku sugayaan ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان دكا جالية الصومالية دكا الإنجليز كلهم كسر في الجبل حتى تغييرها وحننا العلم ما بنقول في ثلاثة تعرفين وحن كلنا العلم توقع الشيء وحن بالله والمسجد نعم هذا العلم طبعا الأداء عدالة وتعضو شرك الوجود السيداء معمول تدرى عنها الدولة بالجديد شركة وحالة طوال تشيء تقول بشي أبري وبنحنها عليها فري يدور ورب الوضع الشركة السعوداء ويسلم عشاء ومهام في وحبيت ترى شركة إمام كهيرك ومرة مركز الكيميائي يقول تأوي هي كسر ويسيب وحبيت ترى إمام كذا كهير قابل كذا هذه أهم هاي الجيل أصل تاع الشركة الجديدة وهي رقم اللغة يو مامك دولة أصل سعرا جديد الشركة مثل الإشعاع ومرة in dastuurkii maamulka la dhisayo uu maanta diyaar yahay ayna suurtagal tahay berri in loo qoreeyo wuxuu kaloo marayaa in baarlamaanka uu yeelan lahaa maamulka oo asagana gacanta lagu hayo oo dhawaan inuu soo baxo aad iyo aad loo rajeynayo sidaas si lamid ah ama waxa lagu shirka ku saabsanaayo xooggiisii shaqo badan iyo howl badan waxaan rajeynaynaa muddada soo koob kale inuu معامل دميسترن وبيعد دميسترن ونصر بطل طبعا عقبات واجبان علاشي واجبان لكن هو تستوى لقواني تأيي عقبات علاشي مركا إنعاد مثلا نغطي مركا ممكن أهلين آدي
ودمان كان عشقوها حنبريين ودمان بس وقت قبل بنيجي بنيجي عشقوها حنبريين أي تهاي أيام ماشان كسعطة وليا بالقبل عند الجماعة حمين جريد هو حمين جريد طبعا مقام طبعا ما عرفت الجيسر طب تحس الدود اللي تكون الوقت الدنيا لكن كنت يحب الجيل بتصير آتي بس قبل بنيجي بالجديد وحنا رجال أكثر كتبوا وخاصة الموضوع في ذلك الصناعة إذا في صدر ونوضح إن شاء الله تعالى أنا لا أحكم هذا المشكلة مرشحين تقول رشحان ملح مننا ما مكان كان كأي شيء دوله كنت وعن سلاحي حدي السوري ده ذكر رمضان بلوزي كمان جرى حرجينا يا عيال دخلنا عليه وحياته أبي عن كفته أنا وكاشة أبونا يذكر جيران الآن وحياة نشوف بالعادة ونحاول أريد أن أعلم موضوع كلمة هاي نرشة فراغ هذه عاملة هي الدول الملكية الدول الذكاء الوطنية العلمية القلمية هذه عاملة هي بالقرآن ومش لما يلعب من سوداء طلع من محافظة حياة في تكتب موضوع الملكية ينعى أدب الشرق وأتلاقي أنا أقول شرط بالدقة ممكن التكرار يعني على الشرط عارفين فيها وحن كلمة دورين نقول أو بيان عن التكرار اليوم كورنيل دور شيء أصلا ده أمن وحاجات مختلفة وحن تروح حاجات مختلفة العالمين مش بقرنيل بيستخدم تبقى مختلفة عدان شرط التكرار أيضا كورنيل تكرار iyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo bulshada diinta dekadaha boorada arrintaas oo horumar degdeg ah iyo maaragtay dhaqaalihii xagga amniga iyo xuquuqda haweenkeeda doon marka waxaan leeyahay muddada aan dadkaasi adiga maaragtay dhammaanteen oo dadka inta horumarkii ah oo aad iyo aad u firfircoon iyo deegaanada Soomaaliya dadka وحصلت حتى لهرمات برمجة إن بكر بيعمل خطة هي أقولين الدنيا يكون الجوامع الدنيا لما يجي بقاله والقرآن بكر بيجيبه الخطة مثلا هي تشوف الفيديو هي بيعمل يسمع بكر هاي إن يجيبه الخطة لها مرة بعد هذه من العلمية لما أنت كتبت بالتحديدا أنت تعيرت أنت أيضا يقولين كثيرين يدين جرعان شريك سوماليات تبديلتي عن ولاية هذه التفكير تبديلتي مع نفسي تجعل السنة العلمية أدوك حوالي ومدبها سوماليات الحركة وإنجانية وراشي الثاني يتمنى التي تركت على مدني مدحويني عبدالكريم حسين قوليد wax badan aan ku salaamayaa waa ku taageersanahay caawana si xawli ah oo aan la soo kala harin Soomaalinimo ayay jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan kuugu soo istaagtay waxay jecel yihiin hogaankaaga waxay xogaan u yihiin wax qabadkaagii mudane waxaan ku leeyahay guulayso noqokii waara oo jiro joogo haddaad xukunkaas heshana noqokii nabadgala asagana laga nabadgalo wax badan aan ku salaamaa madaxweyne guul ahlan wa sahlan aad iyo aad ayaan kuu salaamaynaa musharax cabdikariin xuseen guuleed waxaana filaynaa inaad ku guulaysato insha allah waxaan gudagalaynaa barnaamijkeennii waxaan ku furan doonaa aayadaha qur-aanka ah waxaana loo aqrin doonaa liibaan dalmar kusoo dhowow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم هذا يوم سيهي شيخ ليبان جزاك الله خير حدنا وحن ربعنا وعو قدوميها haweenka qaranka ee Mother International Association qaali
xasan cadow qaali beerlulo. بسم الله الرحمن الرحيم مدن يالي مروين دتك عاوة isugu yimid halkan oo u yimid xafladan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan wax badan idinka mahad celinayaa waqtigiina qaaliga ahaa kalsimada kalsoonida soomaalinimada wadaniyada halkan isugu timaadeen mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad buu iniga mahad celinayaa walaalayaalow halkan caawa waxaan isugu nimid inaan taageero buuxdo aan ugu muujino musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ee gobolada dhexe cabdikariin xuseen guuleed waa nin dalka u soo shaqeeyay cabdikariin guuleed waa wada naqaanaa wadanka oo daruuf adag ku jira ama xaalad adag ku jira ayuu cabdikariin xuseen guuleed ku shaqeeyay cabdikariin xuseen guuleed waa ninkii asagoo dadkiisa u shaqeynayo oo daruuf adag ku shaqeynayo oo si dimuqraasiya la'ana uga degay xilka taasaan ku taageeray taasaan xafladda ugu dhigay cabdikariin xuseen guuleed isku sheegi mayno ninkii asagoo dalkiisii dadkiisiina u shaqeeya raba xilka dhigay ayaana hogaamin kara gobolada dhexe dalka Soomaaliya wax kasta uu qabto hadduu dareemo cabdikariin hal jir canug ah ama hal wiilo hal sano jiro hadduusan xukunkiisa inuuna raalli ka ahayn hadduu u dareemane asoo badbaadinayo danta dalka iyo maamulkaba sidoo shalay u dhiga taasna waa ku taageeray walaalayaal midda kale meeshaasu waxa isku soo sharaxay musharaxiin aad u fara badan oo isku soo sharaxday ninkii meeshaas ka noqon lahaa madaxweyne xaq ilaahay uu ka qoran yahay laakiin qof kasta shuxuurtiisa uu ku cabiri karaa cabdikariin waxaan aniga caawi xafladaan ugu dhigay dadnimadiisa aqaana isla markaasna cabdikariin waa nin ka soo jeeda gobolka Hiiraan anna gobolka Hiiraan ka soo jeeda midda xigta walaalayaal waxaan leenahay musharaxiinta badan ee Soomaaliyeed ee gobolada dhexe ku tartamayso mid alla midkii soo baxa oo ilaahay u qoro in la shaqeeyo hadduu cabdikariin soo baxana inaan la shaqeyno cabdikariin hadduu soo bixi waayana inuu dadka la shaqeeyo laakiin marka ugu horeysa waxay tahay annagu waxa waa qofku rabbi subxaanahu wa ta'aala u qoro ayaa u qoran laakiin cabdikariin masjid ahaan waxaan ugu diraa cabdikariin xafladaada caawa ay jaaliyada Soomaaliyeed ka soo qayb gashay inaad helaysid ma ogin inaad weynaysid ma ogin laakiin waxaan kula jecelnahay inaad ku guulaysato haddaad guulaysatana waa lagula shaqeynayaa haddaydan guulaysanin nin alla ninkii gobolada dhexe mas-uulo ka soo baxo inuu la shaqeeyo annaga waxaan rabnaa isku xirnaan waxaan rabnaa maamul dadka u shaqeeyo waxaan rabnaa dad oo hormuud ah oo dadka shacabka matali karo walaalayaal hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa boqolkiiba boqol waa idiin mahad celinaya waxaan ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayay u mahadsan tahay qaali beerlula waxaan rabaa hadda inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee UK maxamed ciise kusoo dhawow bismillaah walxamdu lillaah ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله شرف كله عاو هل كان فدية سويمي إني استاغان إني قرب قلان inay qiimeeyaan inay xurmadda uu mudan yahay musharax cabdikariin xuseen guuleed ay muujiyaan inay codkoodu mid ka yahay garabgalka iyo sharafnimada ay lahaan jireen reer UK dhammaan annagoon u kala harin rag iyo dumar waxgarad wiil iyo walaal
waayeel iyo caruur waxaan caawa halkan u fadhinaa ka Soomaali ahaan ka London ahaan ka London iyo nawaaxigeeda ahaan inaan si toosa cod gaaban iyo cod dheer baan ku gudbino musharax cabdikariim xuseen guuleed musharax madaxweyne walaal cabdikariim waa ku salaanay kaliya laaban ku salaanay waxaan diyaar u nahay waxaan okobannahay waxaan qiimeynaynaa arrinka aad isku taagtay ee inaad yegleesho inaad majaraha u qabato inaad hoggaanka u qabato inaad ummaddaas ku nool gobollada dhexe ee mudug iyo galguduud ee badka iyo baaxadda leh inaad tiri shafkan u tumay anaa hoggaamin kara anaa hagaajin kara anaa horumarin kara codkaagana hadda aan dhegaysanaynay aanan horey kaaga barannay waa kugu taageeraynaa waana kugu taageersanaa walaal cabdikariim allah kula garab galo hadalkayga caawa wuxuu noqonayaa 3 qodob mid waa fartiin aan farayo musharax cabdikariim midna waa fartiin aan farayo dadka hawshu ka goodo ee dadka fadhiya madasha midna waa fartiin aan farayo qurba joogta caawa horteeda fadhida iyo kuwii dhegeysanaya aan ku hormaro dadka horteeda fadhiya ee codkayga maqlaya labadaas qodob qodobkaasi wuxuu yahay walaalayaal aan ka midoowno midna ka noqono aan ka gudubno isjiidka aan ka midoowno qofkii soo baxa inaan mid ka wada ahaano aan ka midoowno aan ka gudubno isjiid hadduu yimaado inaan garsoor xaqa ka noqono qodobka labaad wuxuu noqonayaa dadka arrinku ka go'o cadaalad iyo xaq wax ku soora ka run sheega hawsha ladii idmaday hawshaad u fadhidaan hawsha aad ummadda idinka soo xulatay inaad u qabataan ka run sheega oo ninkii soo baxa iyo ninkii mataqaanaa xaq arrinkiisu noqdo u caddeeya oo ku siiya musharax cabdikariim walaal waxaan adigana ku leeyahay wax laguma sheego laakiin waxaan ku faraynaa ka jahlid ahaan haddaad guulaysato ilaahay kula garab galo hawl adag baad garbaa u ridatay haddii lagaa guulaysto dee rag waa tartamaa oo hawl waa la galaa oo waa la baratamaa guusha nin baa iska leh inaad u dhegnulaato oo aad la shaqayso annagu waxaan caawo diyaar u nahay oo jecelnahay oo garabkaa ku taagannahay inaad noo soo baxdo oo aad ku guulaysato oo aad arrinkaas isagaa aad nooga soo dhalaasho ayaan caawa aad u quuldaraynaynaa laakiin wallahu aclam bicdaa'ikum ilaahay baa ku shaqo leh qofka arrinkaani mudnaan doona iyo qofka ilaahay uu qoray loox maxfuudkay ku qornay waana wax qoran oo ilaahay xaggiiska laakiin annagu ilaa hadda ma ogin marka warkayga waxaan kusoo xoorinayaa hadal yar iyo hawl badan hagaag iyo horumar heshiis iyo macaani midnimo iyo walaalnimo sharaf iyo xugmad hagaag walaalayaal dhammaanteen iyo dhammaantiinba ilaahay taqwadiisa iyo cabsidaan isfaraynaa warka khayrkaahina wuxuu noqonayaa mas-uulkii noo soo baxow ummaddaasi waxay leedahay yatiin waxay leedahay agoon waxay leedahay maato waxay leedahay dumar waxay leedahay dulmane waxay leedahay dhaawac waxay leedahay dhibane inaad arrinkaasi lagu dhiibto aad ayaga laftigeeda awood gaar iska saarto wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan rabaa inaan waco gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee UK cabdullaahi maxamed aadan salaamullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مروين سلام كدب أنا وكوه الله مجا جالية الصومالية وحن ربع هالكان إن فرين تاجرة وجود بيو ولكن عبد الكريم حسين جوليد مشرح النمدي سمدحوين النمو أهان شها إنه النقطة
madaxweynaha maamul goboleedka gobolada dhexe maxaa yeelay mar hadduu noqday wasiirkii amniga qaranka Soomaaliyeed oo runtii mas'uuliyad sare ah iyo wax la mid mar hadduu soo maray waayo aragnimadeedii waa leeyahay maamul aqoonteedina waa leeyahay waagi uu halkaan ugu soo boqdo jaaliyadda halkaan ugu soo boqdayna habeenada ka mid ah oo safiirkii Cabdullaahi Sanbalolsho habeenkaas uu joogay anigu runtii dadkii ag fadhiyaan ka mid ahaa khudbadii uu ka jeediyay maalinka habeenkaas aniga ka hore aqoon uma lahayn ayaan qiyaas usoo qaadan karaa khudbadaas waxay ahayd khudbo cajiib ah oo dadka qalbiyadooda uu ku kasbaday inuu yahay nin leadershipnimada ku fiican oo wax hogaamin kara inuu yahay musharaxnimadiisa iyo socodkii gobolada dhexe uu tagay waxyaabihii haddana aan kala kulanay waxay ahayd markii ay dowladda federaalka hoggaankeeda sare isagii arrimo ay isku wada hadleen habka ay u sameeyaan gobolada dhexe afkaartii uu ka jeediyay oo mujtamaca uu u jeediyay kelmadaha qaar markii la weydiiyay oo miidiyaha wareysteen kelmadii uu yiri cajiibkeed waxay ahayd wuxuu yiri anigu qofna shakhsi dan gaar ah uma adeego waxaan kolba qadarinayaa kolba rabitaanka shacabkayga sida u roon maslaxadooda siday ku jirto arrintaasna waxay ahayd kariid cajiib ah oo aan dadku qaar looga baran hadii jeeraale anigu dawladdu waan u soo sheegay waa garanayaa hadii jeeraale waxay ahayd dadka markii qofka mas'uul ilaa heer wasiir soo maro noocaas uu yahay haddii madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne ku xigeen ama whatever wax stage isaga ka sareeya protocol ahaan haddii uu ama awaamiir siiyo ama si daban ha u siiyo ama si toos ah u siiyo mararka qaar qofka kuma jawaaba si toos ah isagoo maslaxadda ummadaasi ka turjumayo uma jawaaba si toos uma dhaho danta shacabka ayaa ka muhiimsan danta shakhsiga arrintaasi waa kariid weyn oo Cabdikariin uu mudan yahay sidaa darteed waxaan rabaa hadalka inaan ku dheeraado mar raba maxaa yeelay dad badan baa iga dambeeya sidaa darteed waxyaabahaas iyo arrimo kale oo fara badan oo aan rajaynayno way aragnimadiisa runtii iyo aqoontiisa inuu ku dabaqi doono hadduu positionkaas helo inuu ummadaas hogaamin karo waan aaminsanahay anigoo marka haddaba anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxaan leeyahay Cabdikariin noqo walaal kii guuleysta oo booskaas ku guuleysta oo noqda hogaamiyaha gobolada dhexe oo ah halbowlaha ummadda Soomaaliyeed markii xagga geopolitical loo fiiriyo habka ay u samaysan yihiin gobolada dhexe markii loo fiiriyo waa center weyn oo ummadda Soomaaliyeed maslaxadeeda ay ku xiran tahay haddii halkaas marka maamul fiican oo adag uu ka dhasho waxa hubaal ah in ummadda Soomaaliyeed ay wax weyn ka hagaagi doonaan noqon markaas kii ku guuleysta haddii Ilaahay uu idmo taasaa farinteena tahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha jaaliyadda UK Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullaahi waxaan rabaa hadda inaan waco Cusmaan Raage Sanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka hore halkan ka salaamayaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee isugu timid xafladan sida heerka sare loo soo agaasimay runtii aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa Cabdikariin sida hore loo sheegayba waa siyaasi rugcadaa ah in muddaana runtii ma aragtahay Soomaaliya ka soo shaqeeyay laga soo bilaabo waqtiyadii duruufaha ay jireen oo Soomaaliya runtii ma aragtahay dawladdaanta ay ka jirtay sida aan ka warqabno wuxuu ka mid ahaa macallimiintii runtii ma aragtahay dhinaca waxbarashada sida weyn ma aragtahay u soo kiciyay runtii waxaa kaloo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hadda Soomaaliya soo maray oo ay ugu dambeysay dawladda hadda jirto uu ahaa wasiirka amniga qaranka waa mahadsantihiin assalaamu calaykum haddana waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo Xirsi Cali Cabdulle oo ah oday dhaqameed degan magaalada London aad u mahadsantahay Xirsi soo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan soo dhaweynayaa oo aan si kal iyo laaba u soo dhaweynayaa musharaxa madaxweynaha Xuseen Guuleed Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isu sharaxaya labada gobol ee Mudug iyo Galguduud waxaan leenahay Ilaahay ha kugu guuleeyo kelmadihii kale oo la tilmaamay oo ahaa haddii aad adigu guuleysatana ha lagula shaqeeyo haddii aadan guuleysanna la shaqeey wax aan wada qabno dhammaanteen waxaan ka soo gudubnay looma dhamma
marka mar haddaan ka soo gudubnay looma dhamma waa loo baahan yahay in la tartamo waa dimuqraadiyad wadamada aan ku leenahay Yurub marka taa darteed waxaan leenahay allaha kugu guuleeyo ayaan halkan cod dheer ku leenahay qolada kalena waxaan leenahay haddii la idinka helo u tahniyadeeya hal qof baa cuni lahaa u tahniyadeeya qolada dibutaatiyaasha ah oo doorashada samaynaysa waxaan leenahay ilaahay ka yaaba dadkiinana u naxariista oo qofka markaas u qalma oo aad garan kartaan u doorta marka ninkani wuxuu leeyahay reference number badan uu leeyahay marka laga reebo oo aanan ku darin xataa dawladii la dhisay maalintii dalka laga cararay ilaa maalintii dawladdan la dhisay inta ka dhaxaysa xagga tacliinta iyo dhaqaalaha ayuu ka shaqaynayay oo adduunkuna waa xagga tacliinta iyo dhaqaalaha iyo ciidanka marka sidaa darteed referensigaas uu leeyahay hadalka ma raba inaan ku dheeraado magacayga horta xirsi cali cilmiya la yiraahdo habeen oo dhan waa ku sheegay taaniyan anigu waxaan nabadoon London ka dhashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضان حرسي علي آد يوم هاتسيهاي كلمة ونكسنا يقول ليري حتى نوحنا ربعنا ومعه عمر أحمد قويستي كسر عمر بسم الله الرحمن الرحيم وريال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي هل كان وحان سكون نمد ذاتك لندن جوجا kala duwan ee gobolada kala duwan ka yimid iyo baadiyaha iyo meel kasta magaalooyinka yararka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin horaa hadalkii loo dhameeyay odayaashu u dhameeyeen rag abanaha ka hadlay xirsi oo iga horreeyay oo nin adaga anigu waxaan leeyahay wax kale maaha Soomaaliya maanta waxa laga rabaa in laga sameeyo states badan oo meeshaas dadka Soomaaliyeed ay nabad ka helaan gobolkan state-kan hadda la dhisayo rag badan baa isku sharaxan oo aan kala dhicin laakiin anagu dadkanaga meesha isku yimid ee jaaliyaddan London kamid ah waxaan u aragnay waa aragti ma aha wax yaani xaqiiqo ah oo aan dhihi karno exact way laakiin aragtidana waxa weeye waxa mudan oo maanta aan isdheelahayn arrintaas inay ku fiican tahay ninkaas caawana ayideyno cabdikariin xuseen guuleed waa laga faalooday oo cabdikariin waa la sifeeyey sifaadkiisa la sifeeyey waxa uu yahay wuxuu qabtay waxa uu maaragtay mudan yahay waa laga sifeeyey dadka hore ka hadlay laakiin anigu waxaan ku darayaa oo kaliya aqoon baan u leeyahay cabdikariin waa nin dhalinyaro ah oo siyaasadda aad iyo aad hadda ugu fiican waa nin markii aan soo cararnay oo dalka ka soo tagnay ku haray meesha oo isku yaani asaga iyo rag lamidahu ay isku abaabuleen inay waxbarashada xageeda iyo ummadda khayraad adduunyada uga doonaan marka waxa weeye ninkaas waa nin meeshii ku haray waa ragga soo baxo kamid yahay oo aad iyo aad wax qabasho xagga tacliinta khaasatan wax ka qabtay marka wax qabasho kalena waa iska jirtaa oo waayada wasiirada amniga wasiirka arrimaha gudaha waxyaalo badan uu soo qabtay markaan fiirino waxaan leenahay cabdikariin annagu hadda malihin cabdikariin waa waxbaan u dhacaynaa iyo waxbaan u xoogay laakiin waxaan leenahay cabdikariin waa ninka u qalmaa inuu meesha ragga u qalbuu kamid yahay inuu meesha wax ka noqdo waxaan leenahay u sheegaynaa mujtamaca cadaada fadhiya ee xildhibaanada iyo ergada iyo kulli inay goobaan oo isku dayaan oo aad iyo aad iskugu taxallujiyaan dadka meesha problemka haysta ninka bixin kara haddii asagu ku soo baxana lala shaqeeyo hadduu waayana waa asagu ummadda la shaqeeyo annagu waxaan taageersanahay haddaan nahay jaaliyaddan shirka ka socda ee ah in loogu sameeyo maamul gobolada dhexe ayaan taageersanahay waxaan kaloo taageersanahay in cabdikariin loo arko ninkii meeshaas qaban lahaa waxaan kaloo taageersanahay ninkii ku soo baxay in lala shaqeeyo waa mahadsantihiin waqtigu waa gaaban yahay dadka meesha isku yimid gabadha meesha qalqaalisay wixii la kaalmeeyey
odayaasha meesha yimid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. horta ilaahay baa mahad iska leh oo aan lala wadaagin oo na abuurtay baan haddii alla yidhaahdo baa mahad iska leh mar kasta ilaahay na abuurtay mahad iska leh. marka koowaad shirka markaanu furin ayado quraan baanu ku bilaabanay allaha noo aqbalo. marka xigana waxaa dadka la oran jiray intan kale hadday isku timaado in la isxasuusiyo cabsida ilaahay. horta waxaa la yidhi duca dhammaanteed waa dhurow habaan dhammaantiina waa dhimo. marka wacdi dhammaantiis wuxuu iskugu tagayaa ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha laga cabsado. ilaahay ninkii ka cabsada ilaahay hadda waa ogaya waa ka ajiibahaya. horta taas baan taas ku darahayaa allahana ka siiyo taas intaasna hadeel baan oranayaa. waxaanu iskugu nimid taageerada hadii la kula Cabdikariin Xuseen Guuleed baan iskugu nimid. taageeradiisa iyo xafladiisa waa ii midii labaad aniga caaw midii labaad bay aniga ii tahay. xamar oo aad dareemaysaan ummadda dhooban oo dhan baa iskugu timid taageeradaasaan wax ka joogi. marka labaad Cabdikariin asagaa iskaaya baray ninkuna hadduu iskaa baro dadka dhan baa ogolaada. wixii usukaaya baray baana caawa ku ogolnahay dibad iyo daakhil iyo meel kastoo aan joogno haddaanu Soomaali nahay ama jaariyad nahay ama adduunyada aan ku nool nahay waxaan wixii isku kaaya baray baan haddii alla ku reemaan ku ogolnahay. ninkuna hadduu iskaa baro hadda tilmaan iyo muxuu ahaa iyo muxuu qaba jira la oran mahayo. anugu xamar baan wax ka joogay haddii alla ku reen yahay hadalladiisaan haynaa waxqabadkiisaan ognahay haddii alla tanaasulkiisaan ognahay wuxuu damacsan yahay baan haddii alla ku waxa la yiri hadal calool ku jirna ma garan waayo waxa la feelaha jarka ka xiga waxa weeye ninka markaa taqaano oo iska baro hadda waxa uu qabanayo wuxuu u socdo waad garan kartaa. Xuseen marka waxa weeye markuu ismagacaabay asagoo markuu haddii alla ku is casilay waa laga dabatay waxa la yiri laabo waa uu diido dantu u lahaa uu godooyay dadkiisa iyo dalkiisa. sidaasoo ay tahay markuu isa sharaxayna sidaasoo kale aan ugu haddii alla ku ugu calool fiyoobaanay uguna kalsoonahay una soo dhawaynaynaa una taageeraynaa ilaahay maana la kaashanaynaa haddii alla yiraahdo sidaasaan horta Xuseenna ku naqaanaa. waxaan leenahay marka Xuseen guulayso aanu oran mahayo haddii alla ku guulaysan meesha mar oran ma afkayga laga maqli maayo hadalka qurxoon baa hadalka laga qaataa. ilaah baa marka wuxuu yeelahay asaga og ninku noo magacaabay ilaah waxaan ka baryaynaa ninkii annaga noo khayra oo haddii alla ku noo hogaamin kara oo aan kalsooni ku qabno ilaahay inuu noogu dhiibo haddii alla ninkaas saasan ilaahay ka baryaynaa. marka waxaan jecelahay taageerada aan taageernay haddii aad guulaysato haddii alla ku guulaysaan oranaynaa haddaada guulaysan marna oran mayno hadal ku dari maayo anugu waayo haddii alla ku ron yahay kalsooni baana dantayadii iyo caawa haddii alla hawlahayagii u soo baajinay gabadhii haddii xaas lahayd ninkii haddii alla ku ron yahay shaybaha ninkii meelfo ka yimid ninkii haddii alla waxaan u soo baajinay kalsooni Xuseen baan u soo haddii alla ku ron Cabdikariin baan caawa halkan haddii alla iskugu nimid. waxaan leenahay guulaysaanna ku leenahay. hadalkiina waxaan ku soo gaaminayaa anugu ma hadal badni reer baadiyahan iska ahay waxaan leedahay haddii alla ku reeyay allaha noo aqbalo kalsoonida allaha noo aqbalo allahana nagu guuleeyo sidaas baan leenahay kii ummadda anfacada allah ka dhigo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qaadir Jaylaafar yiraahdaa. hadda waxaan rabaa inaan waco Axmed indamale ku soo dhawow. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaah. waa idin salaamay salaamta islaamka. waxaan taageero buuxda u muujinayaa musharaxa madaxweyne ee Cabdikariin Xuseen Guuleed allah guuleeyo. warka idinku badin maayo allah guuleeyo waxaan rabaa hadda inaan waco Shariif Cabdikariin oo ka mid ah guddiga fulinta koonfur galbeed Soomaaliya ku soo dhawow. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
مدقل ميسين شيء الحمد لله ما يبقى إيتن فراسنا مشرح مدحوين عبد الكريم حسين قولت أنا ما يبقى كلها كقولي سي وأنا كقولي سداس شكب من إنجير إني أذهب بحث مدحوينه مرتين مذو يكفر قلبي إني أذهب بحث شكب من إنجير مذوك يقلقل قدود سدحت قبل وانا ميك الله عبد الكريم نول ترأت ولقى بناو محبن إلا مرتي بربركي ميك الأحجرتي مرتي حمر محكبن متكلم ميكين شيء أنا كهون در إني أذهب بهاس مدحوينا ومرتي سدحت قبل مذوك يقلقل قدود marka kiin rajayaan insha Allah marka dadka kale musharaxiin isna maysin sheega may basin ka rajay hatta an ka tanaazulan Abdulkarim Hussein Guuleed madaxweynimada yani lana tartan naba lasius saasa sin qodsadeen haddana may ma martay sin sheega warkana may laaray martay hayaraaya laaray un herbay dhawi ateen koonfur galbeeda aan sambar may fadana sifayl warna mudi waramaan والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة حاجي علي كسدو بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلا ينهض بركة حاج علي أنا جو كو هذا اللي يرى حافظ دقن نورث لندن مركي أنو آدو شرني وح أنو تاجر بوحدة ولا حادله أنو كنت تاجر إن مشرح مدحوينها عبد الكريم وأنو لنا هي هروس ومدحوينه وأنا كنت تاجر سنة هاي ضمان اللي يرد دقن نورث لندن شر جونية وإغاثة وحاي كنت تاجر مشرح مدحوينها واللي بس اللي حاد لبا نو تاجرينا وأنا مهتسنتي وحربنا إن هذا الكوع قبضة قدوميها قدقة فلينتا هوانك قرنكا ماذر انترناشنال أسوسيشن فاضمو محمد عيسى ومهتسنتين بسم الله الرحمن الرحيم مروينك مدنياشا وقاشا شرفت له كسو قيب قشي حفلدان آدي آيات مهتسنتين maamul goboleedyada kale ka soo qayb galnay aad ayay u mahadsan yihiin dadkii naas oo dhan waa mahadsan tihiin caawa oo dhan hilmaani hadal kuma jiro wixii la yiri waa meesha hadafka la isugu yimid waa Cabdikariin Xuseen Guuleed masharaxnimadiisa Cabdikariin Xuseen Guuleed waa ninka kaliya ee isku wadi kara mudug iyo galgaduud inta isu soo sharaxday ee wada uqaasha ee wada waxgaradka waxaan u maleynayaa inuu Cabdikariin kaga mudan yahay marka wixii la yiri oo murti lahaa waa la yiri hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa Cabdikariin Xuseen Guuleed waa wiil wax bartay oo dhalinyaro ah dadka iyo shacabka iyo wadankana badbaadin kara waxa kale oo meesha loo wada joogaa Cabdikariin Xuseen Guuleed waa nin wax soo bartay sida horeba loo yiri waa muwaadin Soomaaliyeed xaq ayuu u leeyahay inuu isu soo sharaxo hadduu ilaahay ku guuleeyo wuu sheegay hadafkiisa inuu barwaaqo soori doono ayna wax baran doonaan ayna la soo bixi doonaan khayraadkooda mudug iyo galgaduud hadalkaygana soo koobay intaas oo ku soo koobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa soo koobi doonaa barnaamijka haddana waxaan rabaa inaan waco hindi qalab xoor ku soo dhawow assalaamu calaykum waa idin salaamay marwooyin iyo mudanayaal iyo dadkan quruxda badan loo halkan iskugu yimid gabdhaha soo qaban qaabiyay ee xafladda laf dhabarta u ah waan idin salaamay thank you sida aad noo casuunteen annaguna aan kugu nimid ee idin ajiibnay halkan waxaan iskugu nimid Cabdikariin Xuseen Guuleed taageeradiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa Cabdikariin inuu noqon doono madaxweynaha labada gobol ee galmudug markaan iraahdo magacan hore u jiray laakiin waa mudug iyo galgaduud waxaan rajaynayaa hoolkaani waa hoolkii taageerida ahaa inaanu haddii ilaahay idmo rabadaanka bacdi aan iskugu imaan doono xafladiisii caleemasaarka ee madaxweynenimada hoolkan hoolka weyn oo kasii qurux badan oo aan Soomaali oo dhan iskugu wacnay insha Allah saas baan rajaynayaa Cabdikariin waxaan leeyahay waa nin ka bixi kara labada gobol
cabdikariin waxaan leeyahay waa nin u qalma jagadaas cabdikariin waxaan leeyahay waa nin haddii uu jagadaas qabto mataqaanaa madaxweynenimada ee labadaas gobol badda sonkor noogu dari doono bal wax kale iska daa inuu shidaal noo qodo inuu dekad noo dhiso inuu ciyaalka wax noo baro iska badaaba anigu waxaan leeyahay badduuba sonkor noogu dari doonaa marka waxaan leeyahay cabdikariin annagoo ku jecel oo ku og inaad badda inkees noo macayn doontid haddii aad guulaysatid welcome xafladaada caleemasaarkaynu dhigaynaa haddaada guulaysan waxaynu u baahannahay uma baahnin looma dhama waxaynu u baahannahay ninka ugu liita hadduu noqdo madaxweyne uu ka noqdo inaad taageertid baddiina usii sonkoraysid annaguna aynu ku taageerno waxaan ku leeyahay xilkaas mataqaanaa aad rajaysatay annaguna aan u taaganay caleemasaarkaaga haddii uu ku yahay mataqaanaa uu khayr ku yahay allaha kuu sahlo hadduusan khayr ku ahayna meel kale oo ka khayr badan allaha kuu sahlo waa salaamu calaykum